certificate of nomination. This is to certify that Ali Buno Qorane ID number kisa uu yahay 0045141 in lisku raacay inuu mathalo Cawdaq election ka soo socdo oo governor 2027 isku imaatay culumada caamada haweenka dhalinyarada uqaasha meeshanayto isku imaadeen geedka boqorka aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa awow salaamu calaykum awow meeshan maanta maxaa ku imaaday suldaan meeshan maxaa ku imaaday odayaashii booska Cawdaq oo ka talinayay ka shuureynayay arrimihii aad noo dirtay iyagoo ka kooban odayaashaadii muxuu ahaa halkanayto geedka dabadii daba Cawdaq masalayeen 7 culumo oo qoyskanayto 7 iyo 8 siyaasiyiin beec mushtar iyagan rag madax ahaa MB soo ahaa Cawdaq ka talinayay wasiirro ahaa iyo niman dhalinyaro oo arrimahanayto midnimada Cawdaq ka soo shaqeynayay muddo dheer marka maanta waa ku imaanay hawlahanayto baan ku jirnay muddo hadda dhowr bilood yaan doonaynay inaan helno muwaafaqa qoyska sidii aan ku wajihi lahayn doorashadanayto soo socoto oo 2027 cid kasta markii la gaaro waqtigii doorasho wax garadkeeda isku imaada dantii qoyskooda ka tashadaan dib dad leey uma tashadaan waxay ka tashadaan mustaqbalkii qoyskooda iyo mustaqbalkii ummadda ay rabaan inay hogaamiyaan marka anaga taladaas aan ku maqneen wax xumaan kumaana maqneen dad kale umaana soo tashanaynin tala iyo midnimo iyo muwaafaqa sidaan ku wajihi lahayn doorashada nagu soo socoto khasuusan kursiga dayto governor Garissa oo hadda ka horaba midnimo markaan muujinay annagoo la kaashanayna walaalaha annaga ummadda Soomaaliyeed iyo ajnabiga kale oo waddanka joogo la kaashanayno midnimadii waxaan ku helnay guul markii tafaraaruq aan noqonayna guul daraan u dhacday sanadkan maxaan yiri kuma noqonayno tii oo hore maxaan samaynaynaa midnimaan muujinaynaa tolkan is doonanaynaa mudday nagu qaadatay laakiin hadda maanta waxaan u imaanay inaan ku keenno natiijadii ka soo baxday guddigii aad dirtay adiga idintay oo ku shaqeynay idinkaada natiijadii ka soo baxday baan rabnaa inaan maanta aan ku sheegno aniga waxaan ahaa gudoomiyaha guddigaasayto 3 guddi oo la isku daray kuwii culumada kuwii odayaasha geedka kuwii madaxdii gale iyo kuwii dhalinyaradii aan chairman u ahaa 2 deputyna waan qabay Sheekh Yaqoob iyo Sheekh Khaliif yaa ii ahaayeen deputy marka maxaan rabaa intii weli natiijada aanan sheegin yaan rabaa inaan ku wareejiyo inaan Duu Xuseen horta microphone aan u dhiibo 2 kelimo uu sheego marka kadib Sheekh Yaqoob haddana aan u dhiibo alxamdulillah wa thanaa lillahi wa salaatu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam suldaanka suldaan deeqow odayaashii komitiyadii arrintan soo wadeen muddo badan shacbiga meesha isku yimaada dhammaantiin waa salaamantihiin asalaamu calaykum calaykum salaam wa rahmatullah waxaa weeye
siduu jamanka idiin sheegay annagu waxaan ku jirnay sidii aan ku heli lahayn candidate aan ku heli lahayn baan ku jirnay wiilal badan yaa soo qorteen waa aad iyo aad baan ugu munaaqashoonnay waan ka shaqaynay marka go-aan baan soo gaarnay go-aankana waxaa nii sheegi doonaa jamankaan ku wareejin doonaa wixii hadda aan bilownay waxaa weeye geedigii 2027 way bilowgiisi waxaa weeye annaga hadda kuma dhawaaqayna waxaan wadnaa governor moogtahay waxaa jira axzaab baa jirta marka xisbiga mar walba inuu ruux soo baxsado wey teena gaaris iyo soomaalida xisbigeenna waa qabiil waa qoys wey marka waxaan ku maqnayn xisbi ahaan sidaan ruuxa ku soo bixin lahayn qolooyin kalena waxay soo bixin doonaan ruuxay ku heshiyaan bay soo bixin doonaan marka nimankaasaa tartami doonaan marka annaga maanta waxaan wadnaa ninkii bandeerada u qaadi lahaa qoyskan oo xisbi ahaaneh yaan wadnaa marka waa shaqo koow oo noo bilaabanayso weeyo marka waxaa la rabaa intiinan meesha joogtaan inta maqan inaad sidii ninkii aan soo bixinay aan ku gadi lahayn falkeeda aan galno nin kastoo meesha fadhiyo nin kastoo meel kasta jiro waa inaan arrintaas gaarsiino waa inaan sidii aan kursiga lagu heli lahaa hawsheeda la galo annaga waxaan intaan la soconno waa intaas waxaana laga doonayaa kursigaas reer gaaris qabiil kasta ha ahaado nin kasta ha ahaado reer gaaris baan u doonanaynaa marka waa inaad sidaa ogaataan shaqadaa waxaa noo dhiibay suldaankaa noo dhiibay muddo badan baan soo wadnay alxamdulillah waan ku soo guulaysanay intaasaan idiin soo gudbinay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu boorkeenna cawdaaq السلام عليكم والحمد لله siduu idiin sheegay abookay xuseen mudaan soo wadnay arrintan oo boqorka uu noo dhiibay maanta alxamdulillah waan ku guulaysanay tolka waxaa rabnaa sidii 2017 cawdaaq inuu imidoobo fadlan waxaa rabnaa tolka inuu isgaarsiiyo muddo yar baan haysanaa kuraha in la gooyo cawdaaq dad badan baa safartii hore kura ridin cawdaaq ha isgaarsiiyo ha soo baxa kuraha ha rido waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego Soomaali waxay tiri ninbaa waxbaa la bilaabay ninbaa hees wuxuu yiri hadday bilbalaabanaysaa dibay ka bilaaran doontaa cawdaaq wada hadalkiisa hadduu bilaabtay madaxi waan la soo baxnay waxyaalo fara badan oo iska jecel yahay inay maarta loo islaaxiyo yaa jira waa loo islaaxini cawdaaq sidii 2017 isma qabsanaay xaqa la muujini insha Allah cid walba oo maanta cawdaaq waxa tirsato wax khayrna ha tirsato saasa calool adeegaan saan rabaa qoysaska inaan siiyo oo cawdaaq insha Allah waxa la sameeyay cadaalad baa lagu wada ciidan sida kale way sidaan isku muujin karno oo mid ku noqon karno waxaana rabaa inaan calool adeegin si aan hadaan gudiga ku jiro inaan wadayno cadaaladda iyada oo cawdaaq wixii horyaalo si cadaalad uu ku qaybsado insha Allah sidii 2017 sida way sidaan 2017 ku guulaysanay sidaasana haddana muujinaynaa dibay ka bilaaran doontaa وانا بهانسدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جيما تن كوري كل هذا البدن كما hadlaayo arimaha aan wadana waxa ka hadli doona chairman ka hadu alla yiraahdo waxa weeyo sanad ku dhawaad bay arintan socotay ilaa week iyo waxna meel baan ku xareysnay kolka wixii aan isku soo raacnay baan insha Allah taala la sheegi doona mid kale waxaad ogaatiin dadkiina tolka meesha iskugu imaadayo
عدالة بالليل هاي لكن إن شاء الله تعالى وحي صوهرين وأن هاي عدالة بانا لغو معمول دونا إن شاء الله. شكرا. لين أدبي أمات سنيين marka maxaan rabaa inaan u soo gudo galo ninka sawir dhayuhu taagaya dakan weli hatta ma maqlin alalaas ma maqlin weli ma wax ruuxa hatta afka dool cadayna weli ma arkin dadka neefta ku dhagan neefta rabaa inay ka sii daayo marka guddigii caawdaaq oo wada tashiga oo fadhiyay intaasoo muddo oo ka tashanay arrimihii qoyska arrimihii candidate-ka aan caawda rabno inaan maaragtay ku garab qabanno doorashada 2027 guddigii wuu fariistay go'aan buu soo saaray natiijo buu soo saaray natiijadana laskuma khilaafin guddiga 100% wuu isku raacay natiijada maxaa waayo 5 wiil oo caawda application keensatay kulligood way wada istaahilaan inay governor noqdaan cilmigeeda way hayaan khibradeeda way hayaan raganimadeeda way hayaan nimaadeeda way hayaan wax kasta midka kale wax dheer kuma jirin laakiin shantooda dhan halka kursi ma wada deeqay markaan shuuraynay oo si lillaahi u shuuraynay si cadaalada u shuuraynay si danti caawda ku jirto u shuuraynay maxaa noo soo baxay inaan caawda horkeenno magaca cali bunow qorane aamusa magaca cali bunow qorane magaca cali bunow qorane inaan keenno oo aan u soo qaadanno musharaxa keliya oo mathalay qoyskanayto caawdaaq oo kursiga lagu looltamayo oo governor ee electionka 2027 hadduu ilaah yiraahdo markaa suldaan anigoo ku hadlayo afkii guddiga oo chairmankoodii ahaa maxaan rabaa inaan ku qaabilsiiyo shahaada aan qornay oo shahaadadaasayto ay tahay certificate of nomination. This is to certify that Ali Bunow Qorane ID number kiisa uu yahay 0045141 in lisku raacay inuu mathalo caawdaaq electionka soo socdo oo governor 2027 certificate-kan waxaa sengareeyay aamusa anigoo chairman honorable Ibrahim Mohamed Salaad deputy chairman Sheikh Khalif Abdullahi iyo deputy chairman Sheikh Yaqub Yunus haddana certificate-kan hoos waxaa ka xariiqi doonaa Suldaan Deeqow Macallin Sambul suldaanka beesha caawdaaq maanta taariikhda ay tahay 22 July 2025 oo xaruntiisa la joogo ayuu ku saxiixay certificate kariso